Ku soo dhawow shabakada Sirta Media. Haddii ay tahay marka kuugu horeysay, subscribe saar, gambaleelkana furo. Mahadsanid. Madaxweyne Farmaajo ayaa qorsheynaya in uu dib u daahfuro qaar ka mid ah taalooyinka ugu waaweynaa magaalada Muqdisho oo dayactir lacag badan lagu bixiyay ay dowladdiisa ku samaysay. Taalooyinkan dib loo soo celiyay ama ay dowladda dayactirtay ayaa kala ah taalooyinka Sayidka, Xawataako, Axmed Gurey, SYL iyo Dhagaxtuur oo ku teedsanaa kiiloomitir 4 ilaa isgoyska tiyaatarka. Dadkan qaarkooda ayaa ah kuwa hay'adnimadooda dood la geliyo, balse taasi waa sheeko kaloo dheer. Inkastoo caadiyan xariga laga jaro goobaha cusub ee la furayo ee aan sidaas la yeelin goobo ama taalooyin aan cusbeen oo la dayactiray, haddana madaxweynaha ayaa ugu faa'iideysanaya inuu ku sheego qayb ka mid ah waxqabadkiisa. Dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Farmaajo ayaa go'aan ku gaartay in ahmiyadda waxqabadkeeda ay ku salayso inta magaca iyo ka hadalka bulshada ay ku kasban karto, intii ay ku jaangoyn lahayd inta qof ay ka faa'iideysan karta. Waxaa hadda baraha bulshada ka socda olole xooggan oo ay wadaan shaqaalaha fila Soomaaliya iyo shakhsiyaadka ku xiran ee adeegsada Facebook iyo Twitterka oo aad u weyneynaya arrintan kana dhigaya in ay ka macno tahay dib u soo noolaanshaha dowladnimadii Soomaaliya. La yaab ma leh oo waxay ka faa'iideysanayaan dadka Soomaaliyeed ee badankooda ah dad dareenka markaasi ay qabaan ka falceliya ee aan wax cabirin oo aanan kala garan karin wixii saxa ahaa iyo wixii qaldanaa. Tan ugu yaabka badan ayaa ah in madaxweynaha uusan labada taale ee ugu dhow fila Soomaaliya ee SYL iyo Sayidka tegi karin iyada oo aan loo xirin dhammaan jidadka ka agdhow oo aan baabuurta xabadda aysan karin lagu qaadin. Haddana uu doonaya inuu sheegto inuu soo celiyo dowladnimadii Soomaaliya. Dib u soo noqoshada dowladnimada dal waxaa astaan u ah bulshada oo hesho kala dambeyn iyo nidaam cadaalad, amni, waxbarasho iyo caafimaad kuwaasi oo midna aysan shacabka Soomaaliyeed haysanin. Madaxweyne Farmaajo wuxuu talada hayaa 2 sano iyo bar. Waxa isweydiin mudan: kow, ma jiraa cisbitaal ay dowladdiisa u dhistay shacabka oo uu sheegi karo? Ma jiraa hal iskuul oo dowladdiisa ay dhistay oo waxbarasho bilaash ah laga helo? Ma jiraa hal ceel biyood oo ay u qoday boqolaalka maalin kasta abaaraha ugu dhimanaya gobollada dalka qaarkooda? Xitaa ma jiraa hal MCH oo ay dowladda madaxweyne Farmaajo ay dhistay? 14kii bishan waxa uu xitaa madaxweynaha awoodi waayay in uu tago goobtii uu ka dhacay qaraxii ugu weynaa Soomaaliya ee boqolaalka qof lagu dilay isagoo dalka madaxweyne ka ah sababtoo ah amnigiisa ayuu u baqay. Ma lacagaha lagu qarash gareynayo taalo xilligan la dhiso shacabka wax loogu qabto? Ma lagu suga amniga oo mushaarka loogu kordhiyo ciidamada gaajaysan? Madaxweyne Farmaajo waa inuu kala doortaa 2 mid: kow, in 2 ama 3 maalmood kadib laga amaano Facebook iyo Twitter kadibna la hilmaamo. 2, in uu ka tagaa taariikh iyo dhaxal weligeed la xuso. Haddii uu doonayo tan labaad, ha sameeyo waxa dadka ay dareemi karaan. Siday u xaqiijiyeen howlwadeenno la shaqeeya qaar ka mid ah madaxdii ka qayb gashay caleemasaarkii madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, waxaa la filayaa in qaar ka mid ah madaxdii hore ay safar ku tagi doonaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Madaxdaasi ayaa kala ah Shariif Sheekh Axmed, Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed. Sheekh Shariif ayaa si toos ah uga soo duuli doona magaalada Muqdisho, halka Shariif Xasan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed ay ayaguna ka soo safri doonaan magaalada Kismaayo oo ay hadda ku sugan yihiin. Ila lagu kalsoon yahay ayaa shabakada Sirta Media u xaqiijisay in Sheekh Shariif inta uu joogo dalka Kenya uu la kulmi doono gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale oo martiqaad qaas ah u fidiyay Sheekh Shariif kadib markii ay isku barteen oo ay ku kulmeen magaalada Kismaayo. Safarka mas'uuliyiintan ayaa ku soo aadaya iyadoo dacwadii badda ee u dhaxaysay labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya dib loo dhigay muddo 9 bilood ah. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda talada dalka hore u soo qabtay ayaa xilligan u kala dhuumanaya dalka Kenya iyagoo rajo ka qaba in ay Kenya ku taageerto doorashada 2021. Dhanka kale, madaxda Ahlu Sunna oo caawa kulan dheer qaatay ayaa go'aan ku gaaray in aysan qaabilin isla markaana aysan wada hadal la furin wasiir Sabriye oo fariin loogu soo dhiibay. Ahlu Sunna oo dareemaya in balantii hore loola galay looga baxay ayaa ka biyadiiday inay la kulmaan qof fariin loo soo dhiibay oo aan go'aan qaadan karin. Wasiir Sabriye ayaa ah qof aan qaadan karin go'aan isla markaana aan wakiil buuxa ka haysanin dowladda uu ka tirsan yahay. Mid ka mid ah mas'uuliyiinta ururka Ahlu Sunna oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aysan wax macnaha sameynaynin in Farmaajo iyo Khayre ay soo diraan nin ka dhashay beesha Galmudug degta laakiin aan wax go'aan ka qaadan karin. Wasiir Sabriye ayaa ilaa ay hadda ku jira qolkii uu galay markii uu dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb isagoo aan arag mas'uuliyiinta Ahlu Sunna wal Jamaaca. Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay wuxuu dhihi jiray cid walba oo ka soo horjeesata kacandiid wuu xiri jiray qaarna wuu dili jiray. qof kasta oo mucaarad ah xitaa haddii uu sheegto wanaag wuxuu dhihi jiray waa kacandiid ee hala xiro ama hala dilo. Siyaad Barre wuxuu beeniyay aayad Alle soo dejiyay wuxuuna yiri ragga iyo dumarka way siman yihiin balse waxaa ka soo horjeestay culamaa u diin waxayna dhaheen hadalkaagu waa baadil
wuxuuna burinayaa aayad Alle subxaanahu wa tacaala soo dejiyey. Maxamed Siyaad Bare wuxuu yidhi waxay diidan yihiin kacaanka barakaysan ee hala dilo. Waxaa la dilay gabi ahaan culimadii waxayna ahayd musiibo aan gacmaheenu ku doonanay. Maantana waa qaran dumis. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo cid walboo ka soo horjeesata ama diidan siyaasaddiisa wuxuu u adeegsadaa qaran dumis. 27 sano oo lagu jiray dagaal sokeeye, Farmaajo wuxuu ku noolaa Ameerika, weligii kama uusan qayb qaadan dib u dhiska Soomaaliya, balse dadkii intaasi ku dhex jiray gudaha Soomaaliya marnaba aan ka qixin. Dadkii dowladda markii ay burburtay u aas-aasay mashiin waxbarasho, soona saaray kumanaan kun wax bartay, ayuu maanta wuxuu ku tilmaamayaa qaran dumis. Farmaajo wuxuu Itoobiya gacanta u geliyey shakhsi 40 sano amxaare la dagaalamaya, asna wuxuu ku raaxaysan jiray dalka Mareykanka. Kuwii gumaystaha Itoobiya la dagaalamay kana adkaaday duulaankii gumaystaha ayuu maanta ku tilmaamayaa qaran dumis. Farmaajo dalkan waxba kuma sheegto aan ka ahayn in uu kharash siiyey qaaqlayaasha Facebook. Dhanka kale, taliyihii ururka Gorgor ee ciidanka militariga Soomaaliya, horeyna uga tirsanaa saraakiishii ilaalada madaxtooyada, ayaa caawi isaga iyo askari ka tirsanaa ilaaladiisa lagu dilay afaafka hore ee laga ilaaliyay madaxtooyada Soomaaliya. Taliyaha la dilay oo lagu magacaabi jiray Maxaadey Saleebaan ee Bakar iyo askari ka tirsanaa ilaaladiisa ayaa dilkooda yimid kadib markii ay rasaas ku fureen ciidanka ilaalada Hotel Maida ee Kisnaasaha Blood 2. Goobta uu falkaasi ka dhacay ayaa maalmo ka hor la dhigay bar control oo laga ilaaliyo hoteelka, waana wadada ka baxda madaxtooyada ee aada dhanka isgoyska Juba. Shabakadda Sirta Media ayaa ogaatay in sarkaalka inta aanan rasaasta lagu furin uu codsaday in laga qaado birta si uu u gudbo, balse waxaa ka diiday ilaalada hoteelka. Intaasi kadib ayuu dib u qaaday gaarigiisa, wuuna ka soo degay si uu mar kale uga codsado ilaalada hoteelka in laga qaado birta, balse waxaa mar qura rasaas hubiyey askartii ku sugnayd barta kontaroolka ee laga ilaaliyo Hotel Maida. Askariga ayaa isagoo meed ah goobta laga qaaday, waxaana dhaawac uu isbitaalku ugu geeriyooday goobta looga qaaday Maxaadey Saleebaan oo ahaa taliyihii ururka ka tirsan ciidamada uu tababaray Turkiga ee lagu magacaabo Gorgor. Sidoo kale taliyahan ayaa hogaaminayay howlgalkii ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan ciidamada kumaandooska ee lagu soo tababaray dalka Turkiga ee dhawaan la wareegay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Guud ahaan intaa ayaynu kusoo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama siro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakadda Sirta Media.